dhegaystayaal sida laga garan karo sheekooyinka naga soo gaaray ee qaarkood aan barnaamijyadan idinku maqashiiyey wuxuu wiilwaal ahaa geesi dagaalyahan ah haddana keligii taliyuu ahaa wuxuu ahaa daafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula marar badanna cayaayir ku laaya nin aad looga cabsado ayuu ahaa sidaasoo ay ahaydna waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay rag isku taagay rag uu sina uga ilheli waayey gadaalkiina iyagu hah iyo huhba kaga yeersiiyey waxaa raggaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la odhan jiray cigaal iley oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay sidiisa ayuu gabyaa ahaa oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa goor walbana isaga ilaalin jiray waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow ismase indha buuxin jirin wuxuu cigaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo nin la loolama waxbana aanu ogeyn ayuu ahaa sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayey inuu dabinna u maleego marnabase waa ugu soo dhici waaye ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadma ku soo disha hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo uu cigaal qaarna laayey qaar kalena uu dhaawacayoo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeen barkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhaxay middood jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay ugu xeel dheer yahay ugu geesisan yahayoo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn markaas bay waa dahabe waxay ku tiri garaadow arrintu ma aha siday adiga kula tahay dunida rag kalaa kula jooga waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay maxaa yeelay ma ahayn mid uu marnaba filaayey yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay waa kushadayoo waa kululaaday meel uu jirayba shaki baa si degdeg ah maankiisa ugu soo uruuray markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd haw ku soo yidhi oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca isaga oo si laxaw leh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono oogadaada inteeda kale dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka fujiso ayay tiri garaadow ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiraday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo markaas buu sidii hore si ka daran u carooday umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey sida baarqab gorongoray oo qooqii gugu uu la tegey ayuu qowrallada abuurka keenay wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey wuxuu ku yidhi sharac allee ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheegoo degdeg igu sheeg waxay tidhi anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi wuxuu yidhi waa tahay bal ii tilmaam waxay tidhi waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin mana garan dulucdii ay ka lahayd markaas buu weydiistay inay arrinta u balballaariso taasoo ay kaga jawaabtay habeen dambe marka aad reerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii imaan doonaa aniguna intaan sheeko ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa gelin hore iyo gelin dambeba intaan haasaawiyo
ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono. ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa. kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona, adiguna sidaas baad ku garan doontaa. habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uu ladinoo il iyo baal isma uu saarin. dhinac wuxuu ka seexan kari waaye ninka sidaa u dhiiran oo carrada uu ka taliya kula dhaqan, isaguna aanu weli garan karin. dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saa dambe markay noqoto inuu furfuro. isaga oo labadaa arrimood jiefkii la qabanla ayuu waagii u bariyey. kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay shir berri lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin. isla maalintaas gelinkeedii dambe ayay dahabana waxay fariin u dirtay cigaal ilay si uu cawadaas ugu yimaado iyaduna ay u haasaawiso. waa sidii uu rabeeye cigaal oo aad u faraxsan ayaa fiidkii horeba isa soo dhigay. meeshii ay ku ballamisay intuu sii fadhiistay ayuu ku sugay, iyaduna markii uu reerku xoolihii maalay ayay ugu timid. waxay ku bilowday sheekooyin hor leh iyo haasaawo ka macaan kii uu awal hore uga bartay. rag oo idin inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday. waxay ugu bashaaraysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambayn doonto. isna intuu hadalkeedii u beerraqay ayuu wada rumaystay. bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay. erey walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey. markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday. riyadaa quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray. markii ay qorraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku ambabixisay erayo macaan badan, isaga oo weli la jooggeeda sii raba. iyada oo ilka cadcad iyo cirid madow badan ugu qoslaysa ayay sagootisay. wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay, isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalanoo halaaqoonaya. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe iyo waxa geedka shirka ka dhici doona ee wiilwaal iyo cigaal ilay ku dhex mari doona hadduu eebba idmo. waana qaybtii 13aad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, goor habeen bara waatuu wiilwaal afadiisii dahabo ugu faanay rag oo idil inuu isagu ugu xirri badan yahay uguna geesisan yahay. taana intay ku diiday waatay ku tiri garaadow, dunida rag baa kula jooga, iyada oo maanka ku haysa cigaal ilay oo ka mid ahaa raggii tirada yaraa ee ninkeeda isku taagi jiray. weedha dahabo intuu aad uga umlay waatuu ka tawday ujeeddadeeda inay u faahfaahiso. dabadeedna iyada oo aan cidna magac dhabin waatay ku tiri, waxaan u jeedaa ninka og inaan adiga kuu dhaxo ee haddana isoo hawaystay. markaana waatuu weydiistay inay u sheegto siduu ninkaa isaga ah ku garan karo. waatay dabeed ku tidhi, waa ninka habeen dambe igu soo dheelman doona. sidaan u haasaawinaayo ilaa hiirta waa beri waa ninka aan soo jeedin doono. saa dambe geedka shirka markii la isugu tago waa ninka ku lulmoon doona. ninku waa ninkaase adigu garaadow ragga kale sidaa kaga aqoonso. siday caadadu ahayd geedka markii lagu soo dhammaaday ayuu wiilwaal hadalkii u hormaray. wuxuu wax ka yidhi arrimo ku saabsan daaqa iyo degaanka tolka iyo dadyowgii ay dariska ahaayeen, wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay. waa nin wax u dan lehee hadalka wuu dheeraynayaa si uu shirka u daaliyo. intii uu dabaybanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyey ayuu mid mid isha ula raacayaa, bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay. balqaharaac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyey cigaal ilay oo gamanyoonaya. qoorta ayuu laalaadinayaa, garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa. marba hoos ayay luqunta uga dhacaysaa, haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa. indhaha ayuu kolba isku qabanayaa, haddana intuu marmarto ayuu kala furayaa. wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen. cara ayuu ismadax maray. markaas buu si degdega cigaal isu dultaagay. warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xujo ka marnayn, isla markaasna sarbeeban. wuxuu ku yidhi, cigaalow,
halku xamay isna intuu ujeeddadii gartay ayuu kaga jawaabay ima xamane waa hamiyey garaad xirsow markaas buu wiilwaalna ku yidhi cigaalow maxaad ku hamiday naase dameeraad ma horaadda ah mase waa dambeeddo cigaal oo inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay dhammaan intii geedka joogtay ayaa la amankaagtay dabuubihii labada nin dhex maray iyo sidii fududeed ee uu cigaal isku xujo furay waxaa la garan waayey naase dameeraad horaaddo ama dambeeddo mid lagu tilmaamo markaas ayuu garaadkii qudhiisuna inta iska aamusay halkiisii ka sii watay wararkii uu shirka u jeedinayey isaga oo weli raggii goobta fadhiyey isha ku wada haya wuxuu jeedaalinayaa cigaal mooye bal nin kale oo geedka ku lulmooda dabadeedna uu ruuxa weysiiyo taasise ma dhicinoo ninna dabinkii uu dhigtay uguma soo dhicin maxaa yeelay wuxuu is adkeeyaba cigaal baa mar kale si muuqata luquntii u laalaadiyey markaas ayuu wiilwaalna hadalkii inta hakiyey warankii kula boodayoo inta dushiisa ku gilgilay ku yidhi halku xamay cigaalow cigaalna sidiisii intuu ku jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hamiyey garaadow war bal sheeg shirkana maqashii wixii aad ku hamiday haddii kale intii aanu garaadku weedhiiba dhammaystirin ayuu cigaalna ka horgeeyey su'aal uu ku sheegay inay tahay wixii uu ku hamiyaayey taasoo ahayd addimma goroyo majeenyaa mase waa lugo dabadeedna garaadkii kolay ku tahay raggii oo idil ayaa sidii markii hore yaab la kala jeestay waxay la ashqaraareen siduu mar labaad cigaal isku xujo furay iyo weliba dhumucda su'aashii uu iyaga soo dhex dhigay runtii su'aal meesha ku jirta ayay ahayd ha yeeshee ma ahayn tuu weligeed maankooda ku soo dhacday waxay ahayd intii cabbaar ah su'aal ay baadigoobka jawaabteeda ku raageen nin walibana wuxuu isku dayey kii garabkiisa fadhiyey inuu ka toydo bal addimmo goroyo waxa lagu sheegi karo waa garabgaab ay xoolihiina soo hoyaad yihiin godkii galbeed ee ay ku qarsoomi jirtay ayay qorraxdii ku sii durkaysaa lo'dii oo insaarixihina waxay tiigsanaysaa golayaashii la fadhiisan jiray iyo halkii ay weylaheeda ku ogeyd ha yeeshee garaad wiilwaal weli waa taagan yahayoo isaga oo hubkiisii u dhan yahay ayuu dabeebanayaa guurtiidii tolka iyo raggii u dagaalami jiray ayuu la hadlayaa isaga oo warka dheeraynaya oo si ka badbadis ah u faahfaahinaya ninkii oday ahaa isaga daal warkiise kii dhallinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jeclaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gebagabeeyo iyagu waa moog yihiin isaguse wuxuu weli jeedaalinayaa ciyaal mooye bal cid kale oo meesha ku lulmoota dabadeedna uu ruuxa weysiiyo waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo war hadal la is yidhaahdaa maba harine muxuu garaadku meesha inoogu hayaa sidaanse ma ahaan jirine maxaa maanta ku soo kordhay waxay ahaayeen su'aale ay dhexdooda iska weydiin karayeen isagaase aan cidina kula dhici karin iska dabeebtaba mar saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cigaal oo inta madaxii kor u hayn waayey kolba laabta ka soo ceshanaya iyada oo dhammaan raggii kalena ay qun u fadhiyaan oo daal foolkooda ka muuqda ha joogtee aan mid lulmoonayaa ku jirin markaas buu dhab u cadhooday umal daraaddii ayuu dhulkii cagaha ku hayn kari waayey ilkaha ayuu isku lisayaa wuxuu u hamuuman yahay dhiigga ninka gurigiisa iyo afadiisa ku soo dhiiraday waxbaa kuu bidhaamay intuu isidhi ayuu mar kale boodda ku dul joogsaday cigaal iyo halkii uu shirka ka fadhiyey isaga oo kaalkii dushiisa ku gelgelaya ayuu kaga naxsaday erayadii uu hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa halku xamay cigaalow cigaalna tabtii uu u jawaabi jiray intuu u jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hamiyey garaad xirsow wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu cigaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabeed ku guulguulay war bal sheeg shirkana maqashii waxa aad ku hamiday haddii kale galabta hooyadaa way kaa gablami markaas buu cigaalna isaga oo deggan wuxuu ku jawaabay garaadow waxaan ku hamiyey naase hablood ma jiir baa mase waa caddiin raggii shirka fadhiyey ayaa haddana cabbaar ku hogmay su'aashii uu soo hordhigay nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi ha yeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo markuu heli kari waayey marmarsiinyo uu cigaal inay ku xujeeyo ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey
dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dheelmaday iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey. fii dambe mar ay tahayoo xoolihii ay xeryaha ku xasileen ayay wiilwaal iyo afadiisii isku keliyeysteen. wuxuu uga warramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen. wuxuu ku yidhi, raggii shirka joogay nin keliya ayaa 3 jeer iila ekaaday wax lulmoonaya oo hurda hayso. ha yeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu 3 jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fooraray inaanay lulmo ahayn uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey. 3 jeerba wuxuu soo bandhigay su'aalo lala yaabayoo jawaabtooda shirkii oo idili uu garan waayey, isagiina loogu garaabay. sidaa darteed aniguna waan iska daayey kolkii aan u waayey marmarsiiye aan ku xujeeyo. kolka sharaca leehayga qarinne ninka magaciisa ii sheeg. dahaba ayaa markaa ku tiri, iska seexa garaadow, shirka dambe ee raggu isugu imaan doono ayaan waxaan ninkaa kuugu yeedhi astaan aadan marnaba ku garan waayi doonin. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo waayihii iyo sheekooyinkii wiilwaal qaybtii ugu dambaysay hadduu eebba idmo. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii 14aad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, intiina barnaamijyadan ku taxanay sidaad horeba u ogaateen, cigaal ilay wuxuu ahaa nin dhiiranoo wiilwaal far dheeraatay ku noqday. wax kale iska daayay gurigiisa ayuu u daba maray. sidaa darteed buu garaadku in badan ku dadaalay inuu u helo marmarsiiyo uu ku dilo. marnaba se taasi uma suuro gelin, waxaana u dambaysay xeeshii ay afadiisu maamisay. waa halku xamay sheekadii la baxday ee geedka shir ka dhacday, cigaalna uu ku degmi waayey. wiilwaal oo ay ka go'an tahay inuu dilo ninka dahaba soo damaaciyey ayaa iyadii ka duraantay inay magaciisa u sheegto. markaas bay ku tidhi, cidna magac dhabi maayee tilmaam baan ku siin. habeen dambe intaan u yeedho markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sare tafta ka goynayaa. adiguna markaad geedka isugu timaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale. ninka isoo hawaystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono. hawraarsan ayuu yidhi. habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen. maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu shiri jiray. siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu cigaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayey. cawaysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan, asii aan ogayn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayoo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo gaf kaga siisay. had iyo jeer cigaal ilay geedka shirka wuu ku soo hormari jiray. maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray. go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shaxwadaag ahaayeen jalo la dhigtay. cabbaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaya marna iswaraysanaya. waxay kaftanka iyo iswaraysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jectaday inuu geedka yimaado. cigaal oo dhagaha u raaricinaya gabyaatix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay. suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeysnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay. markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey, torow go'u waaba cusbaaye yaa tafta gooyey. dareen baa galay. weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay. wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo. sow inuu haddaba si deg deg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan. markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinac fadhiistay. go'ii uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cad ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan, kiisa keliyihiina aanu u taf go'nan. goortaas goor aan ka fogayn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray. halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay. markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoofaho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay. wax yar kadibna intuu hadalkiisi kadiisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay. tii oo gacantiisa midig ka warac leh ayuu la dul tegay cigaal kuna yidhi, muxuu cigaalow go'aagu la taf go'an yahay? kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa.
wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin. haddana raggii shirki fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayoo ugu jawaabay, garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay, maxaase aniga igu gooni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin. mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay, mase cad dhan baa ka maqan. yaab baa lala kala jeestay, garaadkiina amankaag buu la madax wareeray. maalintaasna ciyaal xujo waa loo waayey, xirribtiisii weynayd ayaa badbaadisay. ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin. goor aan la filayn ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey, isagoo guddoomiyey cigaal mooye ragga kale inuu geedka ku kala dareero. sababta sidaa degdega uu shirka ugu soo gebagabeeyey waa la garan waayey. waxaase ka daraydoo nin sheega la waayey sababta uu cigaal keliya ula haray. inkastoo aan cidina la ogeyn, haddana waxaa ka go'nayd inta aan qorraxdu dhicin inuu cigaal ka faraxasho, sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku haweystay. waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal, cigaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaallaa. dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwan tii uu ula haray ayaa cigaal ku yidhi, in dhoweyd si gaar ah uma aynu kulmin, sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorrax dhaca in aynu iska sheekaysanno, innaga oo manjamarayn iyo taxtaxaash banka jigjiga ugu dhex saqaafayna. weedhaas iyada ah cigaal umuu riyaaqin, wuu dareensaday. wuxuuse goostay inaanu taladiisa diidin, isla markaana uu aad isaga ilaaliyo. ha la yeelo garaad ayuu ugu jawaabay, isaga oo weliba u ilka caddaynaya. waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya, labadoodii baxdowna ku jooga. mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay. danta garaadku waa cigaal inuu gaadmo ku aao, inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo. waa kuwaa isgarab wada, labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya. wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaafsiisnayn. cigaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka wargurayaa, ilqooreedda ayuu ka eegayaa. wuxuu og yahay ilmilicsana allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo. gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu tooghayaa. haddii ay cabbaar sidaa ku wada socdeen, wax ilbaad ahna uu cigaal ka waayey, ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha bedelo. faraskii uu ku joogay ayuu ka degay, markaas buu cigaalna kiisii ka degay. dabadeedna iyaga oo labadii neef taxaabanaya, qorraxdiina ay sii galbanayso, ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafa miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ah ee haabaysa, kolbana dhinac u dilaamaysa. mar keliya ayaa waxaa ku soo dhacday inuu haaddaas cigaal ku jeediyo. markuu kor u eegana uu luqunta ka rido. kolkaas buu inta socodkii faraska iyo kiisiiba hakiyey, wuxuu ku yidhi, cigaalow bal maleeyo maxay haaddaasi ku dhacaysaa? cigaalna ileen waa nin dhab u digtoone, markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal. isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn, indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan, ayuu ugu jawaabay, marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa. wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay. waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirrib iyo xeel, af iyo adin, sir iyo saaq, sina inuu cigaal ilay kaga saayid calayn waayey. markaas buu go'aansaday inuu la nabdo. dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay, isaga oo ku leh, ina adeerow, galabta laga bilaabo colaadaadu iguma jirtee tayduna ha kaa baxdo. marka hore ooryahayga iyo guryahayga iidaa, mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale iigu maamuusoo shirka bartida ha igula akeekamin, hana isku kaytaagin. cigaal bay kolkaa neef kurule ka soo kuday. inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin, haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay. markaas buu ugu jawaabay, waa tahay garaad, taladaada ayay ku dhan tahay, loona noqon maayo. waa hawraarsan iyo guddoon. galabtaasna iyada oo nina aanu midka kale ka irdhaysnayn ayay reerahoodii u kala carraabeen. waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey. wuxuu ku dheeraaday hoog iyo ba wixii uu rag ku falay. wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saayid caleeyeen. si gaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo cigaal ilay dhex martay
ee ay waagii dambe ka heshiiyeen. kolkaas buu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey rag hooyadiisna waan u hayayoo walaalow wax uu ku dhaamo waan waaye, taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaado, gaar ahaan markii la isla helo tan eebba mooye awood kasta oo kaleba inay soo hodin lahayd.